meeshaan joognaa waa 24ka agtiisa waa wadadan waa 24kii iyo 15ka meesha wiil yar oo Soomaali lagu dilay in yar oo Soomaaliya meeshaan lagu dilay booliiska u jeedaan hadda waxyaalo badan ay sameynayaan gabadha Soomaalida haysay informationka wiilka dhintay sawirkiisa wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan dhalinyar oo islaasanaysa isdishaa u maleynaya ma fahanti marka ida khayr ka dhigo والله هلاي meesha waxa ka dhacay dilitaan wiil yar oo Soomaaliya lagu toogtay waxaa toogtay adeeshaak Soomaali kale muslimadow mala ilaa hadda information caadi ah lama hayo waa fiirinayna oo jeedaan meesha dhan waa la xiray yarka meesha uu ku geeriyo waa 24kii area-dan iyo meeshaas meelahan oo dhan booliis ah xiray meesha waa 17 iyo 15kii waaye waa fiirinayna faanteen yar Soomaaliya lagu dilay meeshaan waa Minneapolis 15kii iyo waxa waa 24ka suuqii 24ka waa almost laba black wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan halkaana lagu toogtay meeshaan oo jeedaan booliis badan jooga ilaa hadda ma garanayna waxa toogtay waa ma booliiska shoot garay wiilka mise waa iyaga Soomaali kale shoot garaysay waa maqashaan meesha wiil Soomaaliya isku xabadeeyay wiil Soomaaliya lagu dilay waa u jeedaan meeshaan waa booliis badan jooga gabadha Soomaalida gabadhaas information ka hayso oo aragtay wixii dhacay oo hadda booliiska la shargaleynaysa waa u jeedaan meeshaan waa la xiray area-dan oo dhan xaaladdu waa iska adag tahay dad badan baa meesha jooga aad u weyn marka waa la soo qabanaya maalin maxaa ka dhacay xagga mataqaanaa 24ka riyaal yar oo Soomaali ah gaari ku dhacay gabar ay wadato Mexicana gaarigi markay ku dhaceen iyaga gaariga bumbarkoodii iyo license plate-ko license gaariga ka dhacay way bacarreenba gabadhii tii qosashay dhaad iska tagay iyagu ka dhacay meeshaan booliis badanaa ka buuxa wiil Soomaaliya lagu toogtay wixii toogtay waa Soomaali kale la leeyahay marka arintaas hadda aan ku guda jirnaa oo fiirinaynaa xaaladda waa iska adag tahay booliis badanaa meeshaan joogo waa 24ka agtiisa waaye 24ka agtiisa weeye wiilal badan waaye meesha waxa isku baabiyay حالة دوا دكتاي وليش ما يريراين يعني قبل مركب جوه الرئيس جاري شو استاجي جاري جو كل واحد وصا تقانا هنا محمد يرى جاري جو بلاش أنا شو استأذن مركب وانا حاسة أنا محمد يرى منوع ويا قوي شو يبغى وعشان شوية قاطع إيه قوي مركب سائنا كوار كم وجهي صار في شيء معها ملكيرة اللي حبيكوا تريه والله اللي حضر ما ميوسع ديركم ماشى سبحان الله هو عيالك إسرائيلي ومركز أنا ملاين سبحان الله مركز أمبلاستي بقادم يا وانا مربلسي أمبلاست حرام واي أمبلاست هذا وسكادك تايب وسومود وحنا لقى عشان يعني سيدا وراها
sidii hore ma wiil yar baxalkan wiil yara bas lugeynaysa gaadhigu lugeynay aw lugeynay markay xibada la dhacay halkaas wuu iska socdo lugeynay boorsadii wuxuu lugeynay si way qaadeen ambalaas baa kamid oo qaaday way carareen maxay dileen حبتهم بالعرفي waa 24 ka agtiisa يا تونفور أكيد سماه وماشان ويل يبان تريه ليه هلكي ماشان اللقينا يبي لهم بوس وقلت هاي وحكم بحبط قطعي هاي مو أنت والله قاعد ويلي أنت هذا بعرفش الله وحنا يلا يلا ma isla socdaan ma isla socdaan اللقينا يبي لهم قاعد ما ودي wiilka waa ma noola wiilka inuu nool yahay inuu dhinto wallahi Allahu a'lam muu dhintay gabar halkan wiilka yar waa dhintay bay leedahay wiilku waa dhintay bay leedahay gabadhu lix xabad baa lagu tiriyay leedahay wiilku meesha uu socday waxaa dishay Soomaali kale dishaa la yiri Soomaali kale military badan iyo waxaa yimid military badan iyo waxaa yimid iyo ويرا اللي دلي ويلك ما لا أركايا I'm too short ماشي عاو جدا دجال سومالي بدن با لمسي صادق إلا جرناي أمشي أجريه أباي صادق أباي واكنا واحد عايق ودنا هيسا الله يا رحمة كان هو أجي مو عربي gabadhaas haysa gabadha waxay ka haysaa information fiican booliiska la wadaagtay insha Allah la soo qabanayaa saa u ogaada meeshaan joognaa waa 24 ka agtiisa waa wadadan waa 24 kii iyo 15 ka meesha wiil yar oo Soomaali lagu dilay inay yar oo Soomaaliya meeshaan lagu dilay booliiska oo jeedaan hadday waxyaalo badan ay sameynayaan gabadha Soomaalida haysa informationka wiilka dhintay sawirkiisa wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan dhalinyar oo islaasanaysa isdishaa u maleynaya ma fahanti marka ila khayr ka dhigo والله هلاك meesha waxaa ka dhacay dilitaan wiil yar oo Soomaaliya lagu toogtay waxaa toogtay adeeshaak Soomaali kale muslimadow mala ilaa hadda information caadi ah lama hayo waa fiirinaynaa ujeedaan meesha dhan waa la xiray yarka meesha ku geeriyo waa 24 kii areadan iyo meeshaas meelahan oo dhan booliis ah xiray meesha waa 17 iyo 15 kii waaye waa fiirinaynaa faanteen yar Soomaaliya lagu dilay meeshaan waa Minneapolis 15 kii iyo waxa waa 24 ka suuqii 24 ka waa almost laba black wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan halkaan lagu toogtay meeshaan oo jeedaan booliis badan jooga ilaa hadda ma garanayna waxa toogtay waa ma booliiska shoot garay wiilka mise waa iyaga Soomaali kale shoot garaysay waa maqashaan
meesha wiilal Soomaaliya isku xabadeeyay wiil Soomaaliya lagu dilay waa u jeedaan meeshaan waa booliis badan jooga gabadha Soomaalida gabadhaas ay information ka hayso oo aragtay wixii dhacay oo hadda booliiska la shargaleynaysa waa u jeedaan meeshaan waa waxa waaye waa la xiray area-dan oo dhan xaaladdu waa iska adag tahay dad badan baa meesha jooga aad u weyn marka waa la soo qabanaya maalin maxaa ka dhacay xagga mataqaanaa 24 riyaal yar oo Soomaali ah gaari ku dhacay gabar ay wadato Mexicana gaariga markay ku dhaceen iyaga gaariga bumbarkoodii iyo license plate-ko license gaariga ka dhacay way bacareenba gabadhii tii qosashay dhaal iska tagay baladkii iyagu ka dhacay meeshaan booliis badanaa ka buuxa wiil Soomaaliya lagu toogtay wixii toogtay waa Soomaali kale la leeyahay marka arintaas hadda aan ku guda jirnaa oo fiirinaynaa xaaladda waa iska adag tahay booliis badanaa meesha joogo waa 24 ka agtiisa waaye 24 ka agtiisa weeye wiilal badan waaye meesha waxa isku baabiyey xaaladda waa adag tahay wiilashu ma yaraayeen yani gabadh markii ugu horeysay gaariga soo istaagay gaarigayga kale waxa wataa taqaanaa ina maxamed yare gaarigayga balaag markaas istaagsanaa markii uu naxas ina maxamed yare waa munaan wacay way iga qaban weeday suuqa waa sidoo soo iga qaatay iga qaban weeday markaas inaan ka warkay wajigiisa fiiriyay maahan wiilkeera لحبي كتير والله ما ميوسعد يركم ماشي سبحان الله او عيالك اسراسني وي markaasaan u malayn سبحان الله marka ambalaasti ba qaaday miya wana warba la suugan ambalaasta xaraan waayo wana ambalaas hadda iska adag tahay basoo moogid waxaana laga cabsanayaa sidii hore ma wiil baxalka wiil yara waxa lugeynay gaariga lugeynay aw lugeynay markii badana dhacan halkaas wuu iska socdo lugeynay boorsadku wuxuu lugeynay si qaadan ambalaasta kamid ah qaadan waa carreen wixii dilay xabadon baa la arkay waa 24 ka agtiisa ya 24 agtiisa waa meeshan wiil yar baa dilay halkee meeshan uu lugeynaya bay yiraahdeen boos sugatay wax un baa xabad ku dhuftay meesha uu dhinto waa la qaaday bay leeyihiin intan hadda bahashan lagu xiro yalla yaa laga qaaday ma isla socdaan lugeynaya bay yiraahdeen gaari ma waday Soomaali buu ekaa wiilka waa ma noola wiilka inuu nool yahay inuu dhinto wallahi Allahu a'lam muu dhintay gabar halkan wiilka yar waa dhintay bay leedahay wiilku waa dhintay bay leedahay gabadhu lix xabad baa lagu tiriyay leedahay wiilku meesha uu socday waxa dishay Soomaali kale dishaa la yiri Soomaali kale military badan iyo waxa yimid military badan iyo waxa yimid iyo ويرا اللي دلي ويلكم ما أركايا I'm too short
meesha waa u jeedaan waa dagaal iyo waa Soomaali badan ba lamsi saade in la garanayo meesha aan guriyay abay saade abay waa kana waxa dhacay gabadhana haysta الله يا رحمة ما كان وقيها كم تبغى كان وقيها مو حرر به gabadhaas haysa gabadha waxay ka haysaa information fiican booliiska la wadaagtay insha Allah la soo qabanayaa saa u ogaada meeshaan joognaa waa 24 ka agtiisa waa wadadan waa 24 kii iyo 15 ka meesha wiil yar oo Soomaali lagu dilay in yar oo Soomaali ah meeshaan lagu dilay booliiska u jeedaan hadda waxyaalo badan ay sameynayaan gabadha Soomaalida haysa informationka wiilka dhintay sawirkiisa wiil Soomaali ah lagu dilay meeshaan dhalinyar oo israasanaysa isdishaa u maleynaya ma fahanti marka ida khayr ka dhigo والله هلاك meesha waxa ka dhacay dilitaan wiil yar oo Soomaaliya lagu toogtay waxa toogtay adeesha Soomaali kale mise madow mala ilaa hadda information caadi ah lama hayo waa fiirinayna oo jeedaan meesha dhan waa la xiray yarka meesha uu ku geeriyo waa 24 ki area-dan iyo meeshaas meelahan oo dhan booliis ah xiray meesha waa 17 iyo 15 ki waaye waa fiirinayna kantii yar Soomaaliya lagu dilay meeshaan waa Minneapolis 15 ki iyo waxa waa 24 ka suuqii 24 ka waa almost 2 black wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan halkaana lagu toogtay meeshaan oo jeedaan booliis badan jooga ilaa hadda ma garanayna waxa toogtay waa ma booliiska shoot garay wiilka mise waa iyaga Soomaali kale shoot garaysay waa maqashaan meesha wiil Soomaaliya isku xabadeeyay wiil Soomaaliya lagu dilay waa u jeedaan meeshaan waa booliis badan jooga gabadha Soomaalida gabadhaas information ka hayso oo aragtay wixii dhacay oo hadda booliiska la shargaleynaysa waa u jeedaan meeshaan waa la xiray area-dan oo dhan xaaladdu waa iska adag tahay dad badan baa meesha jooga aad u weyn marka waa la soo qabanaya maalin maxaa ka dhacay xagga mataqaanaa 24 riyaal yar oo Soomaali ah gaari ku dhacay gabar ay wadato Mexicana gaariga markay ku dhaceen iyaga gaariga bumbarkoodii iyo license plate-ko license gaariga ka dhacay way bacarreenba gabadhii tii qosashay dhaad iska tagay baladkii iyagu ka dhacay meeshaan booliis badanaa ka buuxa wiil Soomaaliya lagu toogtay wixii toogtay waa Soomaali kale la leeyahay marka arintaas hadda aan ku guda jirnaa fiirinaynaa xaaladda waa iska adag tahay booliis badanaa meeshaan joogo waa 24 ka agtiisa waaye 24 ka agtiisa weeye wiilal badan waaye meesha waxa isku baabiyay xaaladda waa adag tahay
wiilashu ma yaryaraayeen yani gabadh markii ugu horeysay gaariga soo istaagay gaarigayga oo kale waxa wataa taqaanaa ina maxamed yare gaarigayga balaag halkaas istaagsanaa markii ugu naxas ina maxamed yare waa munan waa iga qaban weeyday suuqa waa sidii soo iga qaatay iga qaban weey markaas inanka u arkay wajigiisa arkaasay qiimaha wiilkeera لحبي كتير والله ما يسعد يركو ماشي سبحان الله او عيالك اسراسني وي مركاسان امالين سبحان الله مركا امبلاستي بقاداي ميا وانا وربا لسوي امبلاست حرام واي امبلاست هادو اسكا ادق تاي بسو موود waxaana laga cabsanayaa sidii hore ma wiil yar baxalka lagu wiil yara bas lugeynaysa gaarigu lugeynay aw lugeynay markay xibada la dhacay halkaas wuu iska socdo lugeynay boosad wuxuu lugeynay si soo qaadeen ambalaasta kamid oo qaada waa carreey maxay dilay xabada un baa la arkay waa 24 ka agtiisa ya 24 agtiisa waa meeshan wiil yar baa dilay halkee meeshan uu lugeynaya bay yiraahdeen boos sugatay wax un baa xabad ku dhuftay uu dhinto waa la qaaday wiilay intan hadda bahashan lagu xiro yaa laga qaaday ma isla socdaan ma isla socdaan lugeynaya bay yiraahdeen gaari ma waday Soomaali buu yakaa wiilka waa ma noola wiilka inuu nool yahay inuu dhinto wallahi Allahu a'lam muu dhintay gabar halkan wiilka yar waa dhintay bay leedahay wiilku waa dhintay bay leedahay gabadhu lix xabad baa lagu tiriyay leedahay wiilku meesha uu socday waxa dishay Soomaali kale dishaa la yiri Soomaali kale military badan iyo waxa yimid military badan iyo waxa yimid iyo ويرا اللي دلي wiilka ma la arkaya I'm too short meesha waa u jeedaan waa dagaal iyo Soomaali badan ba umsi saade in la garanayo meesha aan geliye abay saade abay waa kana wiilka waxa dhacay gabadhana haysta الله يا رحمة kan uu og yahay wuu cararbe gabadhaas haysa gabadha waxay ka haysaa information fiican booliiska la wadaagtay insha Allah la soo qabanayaa saa u ogaado meeshaan joognaa waa 24 ka agtiisa waa wadadan waa 24 kii iyo 15 ka meesha wiil yar oo Soomaali lagu dilay inay yar oo Soomaaliya meeshaan lagu dilay booliiska oo jeedaan hadda waxyaalo badan ay sameynayaan gabadha Soomaalida haysa information-ka wiilka dhintay sawirkiisa wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan dhalinyar oo israasanaysa isdishaa u maleynaya ma fahanti marka ila khayr ka dhigo والله هلاك meesha waxa ka dhacay dilitaan wiil yar oo Soomaaliya lagu toogtay waxaa toogtay adeeshaak Soomaali kale muslimadow mala ilaa hadda information caadi ah lama hayo waa fiirinaa oo jeedaan meesha dhan waa la xiray yarka meesha ku geeriyo waa 24 ki area-dan iyo meeshaas meelahan oo dhan booliis ah xiray
meeshaan waa 17 iyo 15kii waaye bal waa fiirinaynaa fahanteen aad weyn yar Soomaaliya lagu dilay meeshaan waa Minneapolis 15 iyo waxa waa 24ka suuqii 24ka waa almost laba black wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan halkaan lagu toogtay meeshaan oo jeedaan booliis badan jooga ilaa hadda ma garanayna waxa toogtay waa ma booliiska shoot garay wiilka mise waa iyaga Soomaali kala shoot garaysay waa maqashaan meesha wiil Soomaaliya isku xabadeeyay wiil Soomaaliya lagu dilay waa u jeedaan meeshaan waa booliis badan jooga gabadha Soomaalida gabadhaas ay information ka hayso oo aragtay wixii dhacay oo hadda booliiska la shargaraynaysa waa u jeedaan meeshaan waa waxa waaye waa la xiray area-dan oo dhan xaaladdu waa iska adag tahay dad badan baa meesha jooga aad u weyn marka waa la soo qabanayaa maalin maxaa ka dhacay xagga mataqaanaa 24ka ciyaal yar oo Soomaali gaarigii ku dhacay gabar ay wadato Mexicana gaarigii markay ku dhaceen iyaga gaariga bumbarkoodii iyo license plate-ko license gaariga ka dhacay waa bacareenba gabadhii tii qosashay dhaal iska tagay balaki iyagu ka dhacay meeshaan booliis badanaa ka buuxa wiil Soomaaliya lagu toogtay wixii toogtay waa Soomaali kale la leeyahay marka arintaas hadda aan ku guda jirnaa oo fiirinaynaa xaaladda waa iska adag tahay booliis badanaa meeshaan joogo waa 24ka agtiisa waaye 24ka agtiisa weeye wiilal badan waaye meesha waxa isku baabiyey xaaladda waa adag tahay wiilashu ma yaraayeen yani gabadh markii ugu horeysay gaariga soo istaagay gaarigayga kale waxa wataa taqaanaa ina maxamed yare gaarigayga balaag markaas istaagsanaa markii uu naxas ina maxamed yare waa munaan wacay way iga qaban weeyday tuuga waa sidii soo iga qaatay iga qaban way markaas inaan ka warkay wajigiisa afkiisa maahan wiilkii yara lixbi ku tiriyo wallaah ما ميوسعد يركم ماشى سبحان الله أو عيالك إسرائيلي ومكاسن أملين سبحان الله موكا أمبلاستي بقادم يا وانا وربلا شوية أمبلاست حرام واي وانا أمبلاست هادو إسكا عدك تاي بس وموجود وحان على قاعد سنة يعني سيدي هرا ما ويلير بحلك ويل يرى بس لقيني أو لقيني مركي بدنا ندعي الحكاس هو اسكس عدو لقيني بورصة موتو لقيني يا سيدي قادم أمبلاس فاتمي قادم يعني وعرّي مش يدري محبتهم بالأركي و 24 كاكتيس يا 24 أركي سماه ماشانه ويل يبى تري هلكي meeshan uu lugeynaya weeyaan boos sugtay wax un baa xabad ku dhuftay meesha uu dhinto waa la qaaday weeyaan intan hadda bahasha lagu xiro yalla yaa laga qaaday ما يسلا سعدان ما يسلا سعدان lugeynaya weeyaan gaari ma waday ana Soomaali buu ka wiilka waa ma noola wiilka inuu nool yahay inuu dhinto wallahi Allahu a'lam مو دنتي قبر halkan wiilka yar waa dhintay bay leedahay wiilku waa dhintay bay leedahay gabadhu lix xabad baa lagu tiriyay leedahay wiilku meesha uu socday waxa dishay Soomaali kale dishaa la yiri Soomaali kale
خاصين ملتري كمان ملتري بدن يا وحي ملتري بدن يا وحي يو لكن لما أقبل ويرا اللي دلي ويلكم ما أركايا I'm too short. ماشي عاو جدا دجال سومالي بدن با ولسي صالح إلا جرناي أمشي أبوي أباي صالح صالح أباي واكنا واحد عاي قواد أنا هيستا الله يا رحمة كان هو أجي مو حرر به gabadhaas haysa gabadha waxay ka haysaa information fiican booliiska la wadaagtay insha Allah la soo qabanayaa saa u ogaada meeshaan joognaa waa 24 ka agtiisa waa wadadan waa 24 kii iyo 15 ka meesha wiil yar oo Soomaali lagu dilay in yar oo Soomaaliya meeshaan lagu dilay booliiska u jeedaan hadda waxyaalo badan ay sameynayaan gabadha Soomaalida haysa informationka wiilka dhintay sawirkiisa wiil Soomaaliya lagu dilay meeshaan dhalinyar oo islaasanaysa isdishaa u maleynaya ma fahanti marka khayr ka dhigo والله هلاك meesha waxa ka dhacay dilitaan wiil yar oo Soomaaliya lagu toogtay waxa toogtay